Sheekh Abdullaahi Xasan Xaashi Barbaraawi ayaa khudbadii Jimcaha waxa uu kaga hadlay doorashadii Somaliland iyo qaabkii ay u dhacday iyo waliba dhibaatooyinka laga cabsi qabay inay ka dhashaan doorashada oo dadka iyo dalkuba ay ka badbaadeen. Sheekhu waxa uu duceeyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dejinta dadka iyo ilaalinta nabadgelyada intii ay socotay doorashadii Somaliland. Sheekh Barbaraawi waxa kale oo uu ka hadlay dadkii ku geeriyooday rabshadihii ka dhacay magaalooyinka qaar. وإلهي سبحانه وتعالى وقدر مويان وحكلنا أهان مايان إلهي با سبحانه وتعالى إنه نعميي نبت قليو دقنا الشو إلهي با إنه قباتيي خلخلية فوضى ديقوضا طفر بداني حولنا اللبابا أعراض يدكت يشرفتنا مالك كدعو إلهي سبحانه وتعالى إنه نعميي باتفاق الكلمة ذاتك إنه يأرهن اسكوا فقين وخلافية تفرارق لقبق إلهي سبحانه وتعالى إنه قبت بهذه الله أصينه مهدنا قينا سوء نعمة إنه زياديه وحين هلكن وقد عينينا qof kasto ilaahay sabab uga dhigay kana qayb qaatay fi dar'i alfitna an hadhihi al-umma in fitna laga fogeeyo ummadan wa tahdiyati al-awda' iyo wadcigu inuu noqdo mid degan oo nabadgelyo ay ka muuqato qof kasto ka shaqeeyay nabadgelyada qof kasta oo ku dadaalay deganaansho inuu sii jiro oo kamida dadka madaxda noocyada kala duwan madax dhaqameedka meel walba kaga tiraabaya nabadgelyada hala ilaaliyo mashaayikhda iyo ducaada ka shaqeynaya islaaxa heshiiskiisa isu soo dhaweynta dadka si looga badbaado fitna iyo fasaad ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dhammaantoodba wanaag bay sameeyeen iska hor imaadyadii dhex maray ciidamada booliska iyo dad shacab ah ilaahay ha u naxariista baynu leenahay rabbina subxaana wa tacaala ha u dembi dhaafo kuwa dhaawacmayna bogsasho degdega oo dhammaystiran ilaahay ha ku arsaaqo dadkii ay ka geeriyoodeen wax ka fiican ilaahay ha ugu bedelo qofka muslimka dhiigiisu hadur ma noqdo haddii la dilo ciddii dishay baa dhiiggiisa lagu leeyahay ama kama ha loo dilo ama kas ha loo dilo haddii qofkii la garan waayo cid dishay oo isagoo mayda un la helo ama meelay dadku isku jiidheen qofku uu ku dhinto ama iska hor imaadyada noocaas oo kale ah qofka muslimka dhiigiisu hadruba noqdo ugu dambeynna Sheekh Abdikariin Xasan Xaashi Barbaraawi waxa uu sharaxaad ka bixiyay farqiga u dhaxeeya doorashada sharciga islaamku jideeyay iyo midda bini'aadamku samaystay ee madaxda lagu doorto doorashada noocaasi casharaynu ka baranayna cibrooyina waynu ka qaadanayna arrimo fara badanna waynu ugu baraarujinaysaa arrimahaasi waxaa kow ka ah qof kastoo muslima u fiirsado waxa u cadaanaysa farqiga cad ee u dhaxeeya sharciga rabbul caalamiin uu soo dejiyay nebi maxamed uu ku soo dejiyay sharcigaas oo khayr iyo baraka mooyaane wax kale dadka aanu keenahayn sharcigaas oo cadaalad ay ku dhan tahay iyo qof walba xaqiisa in la siiyo sharcigaas oo ku baaqaya dadku inay isu naxariistaan maantana waxaad arkaysaa habliyo inama dhexda is haysta gacmaha is haysta garbaha is haysta oo wadooyinkeena maraya nidaamka aan kii ilaahay ahayni waxyaabaha uu dhalay iyo midhaha laga goostay mid ka mida weeye dad badan baa iscaayay dad badan baa isnacay kuwa kale isqabyaaladeeyay qaar baa laga yaabaa inay wax isgaarsiiyeen waajibku waxa weeye qofkii xaq muslim uu ku maqan yahay xaqa inuu iska gudo intaan ilaahay la horgeyn subxaanahu wa tacaala sharciguna waxa weeye fadiiladu in la iscafiyo
faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah qofka cafiya cafis keenaya islaax iyo wanaag ajarkiisu ilaahay agtii buu u yaallaa